bismillaahi raxmaani raxiim akhyaarteeda meel walbo aad joogtaan si weliba salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. asxaabta aynu hawada ku saaxiibnay meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan fiideo cusub. fiideoga maanta waxaan kaga hadli doonaa nolosha iyo weliba waxyaabihii uu soo maray golayaha xulka qaranka Chile iyo kooxda Manchester City. Claudio Bravo diintee ayuu haystaa, halkee ayuu kasoo bilaabay ciyaarista kubadda cagta iyo waxyaabo kale oo xiiso badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena xogta ciyaaryahanka. haddaba intaanu gudagelin fiideogan bal waxaan kaa codsanayaa haddii aad channelkan ku cusub tahay in aad subscribe saarto, gambaleelka aad furato si aad u noqoto daawadaha koowaad. commentiga inoogu soo qor wax waliba ee fikirkaaga, laag inagu dhiirigeli. digniin waa ka mamnuuc fiideogan in aad koobiyeyso una adeegsato Facebook sidoo kale YouTube. mahadsanidin. magaciisa oo buuxa waa Claudio Andres Bravo Mondes. waxa uu dhashay 13 Abriil 1983. waa 33 jir, ku dhashay magaalada Filoko ee wadanka Chile. culayskiisu waa 1.83 kilogram, dhirirkiisu waa 6 feet iyo 2 in. waa goolhayaha caalami ah una ciyaara kooxda reer England ee magaalada Manchester ka dhisan ee Manchester City iyo xulka qaranka Chile. Claudio waxa uu wax ku bartay xarunta waxbarashada ee lagu magacaabo College San Eugenio. Claudio waxa uu aaminsan yahay diinta Kristaanka. xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Carla Badro. waxa ay wada socdaan tan iyo sanadii 2007. waxa ay kala heleen 4 caruur ah oo lagu kala magacaabo Matt Bravo, Emma Bravo, Matteo Bravo iyo weliba Josefa Bravo. ninkan waxaa la dhashay hal wiil waxaana lagu magacaabaa Cesar Bravo. Claudio waxa uu aad u jecel yahay ciyaarista kubadda cagta, waana nin mawhibo aad u weyn u leh dhanka iyo kubadda cagta. waxa uu qandaraas xayeysiisa kula jira shirkadda samaysa agabka iyo weliba qalabka isboortiga ee lagu magacaabo Adidas. waxa ay saaxiib ahayeen golahayaha xulka qaranka Netherlands ahna golahayaha saddexaad ee Barcelona waqtigii uu ku sugnaa garoonka Camp Nou. golahayaha lagu magacaabo Jordi Mazeba waayihiisa ciyaareed intii uu ku guda jiro waxa uu soo maray waxyaabo kala duwan iyo kooxo aan markaasi la soo koobi karin, haba u badnaadaan kooxaha dalkiisa hooye ee Chile. aabaha dhalay Claudio ayaa aad ula dhacay xirfadda ee uu leeyahay wiilkiisa Bravo. kadib waxa uu ku daray xirada tababarka ee kooxda Colo-Colo qaybteeda juniorka, halkaa uu ugu dambeyn kasoo muuqday kooxda koowaad 2002. waqti yar kadib Claudio Bravo waxa uu Janes u helay inuu safto kulan caalami ah kadib markii uu dhaawacmay golhayihii koowaad ee waqtigaas Edward Lobas. nasiib xumo isagana waa uu dhaawacmay. waxa uu dib ugu soo laabtay garoomada bartamihii sanada 2003. 2006 Claudio waxa uu ku guuleystay koobkiisii ugu horreeyay kadib markii uu badbaadiyey rigooradii ugu dambeysay kulan ay markaa kooxdiisa Colo-Colo wajahaysay kooxda lagu magacaabo University de Chile. 2006-2007 Claudio Bravo ayaa u soo wareegay qaarada Yurub, gaar ahaan wadanka Isbaanya iyo weliba kooxda Real Sociedad. waxa ayna ku soo iibsadeen adduun lacageed gaaraya 1.2 milyan oo euro. waqti fiican ayuuna la qaatay kooxda Real Sociedad, weliba isagoo halkaasi ku sugan ayuu dhaliyay gool kaliya ee xirfadiisa ee uu dhaliyay. weliba waxaa cajiib ah in goolkaasi uu ahaa free kick ama ballaadka xorta, nin weliba siduu u garanayo. 18 June 2014 waxa uu ku biray Claudio Bravo naadiga muruqweynta qaarada Yurub Barcelona. waxa ayna kula soo wareegeen adduun lacageed gaari 12 milyan. waxa uuna u saxiixay 4 sano. waxa uuna noqday xidigii afraad ugu qaalisnaa ee kooxda Real Sociedad ay iska iibiso, waana ciyaaryahankii labaad ee u dhashay dalka Chile una ciyaara kooxda Blaugrana kadib Alexis Sanchez. Claudio Bravo waqtigiisa ugu fiicnaa ayuuna ku qaatay gegada Camp Nou. halkaasi waxa uu
kula guuleystay 8 koob oo ah koobabka ugu waaweyn qaaradda Yurub haba ugu weynaado UEFA Champions League iyo waliba sidoo kale laba horyaal oo La Liga ayuuna kula guuleystay kooxda Blaugrana balse nasiib daro 25 Agost 2016 Claudio Bravo waxa uu ku biiray naadiga ka dhisan magaalada Manchester City waxaayna kula soo wareegtay adduun lacageed gaaraya 17 milyan waxa uuna u saxiixay heshiis 4 sano kulankiisa ugu horeeyay waxa uu saftay 10 September 2016 kulan ay ciyaariyeen kooxaha labada Manchester. Claudio Bravo waa ninka ugu safashada badan xulka qaranka Chile waana xidigii ugu horeeyay ee 100 kulan u safta xulka qaranka Chile. Claudio waxa uu qayb ka noqday qaybaha kala duwan ee xulka Chile sida under 17 ilaa iyo kuwa koowaad waxa uuna qayb ka ahaa tan iyo 2004 waxa uu sidoo kale ka soo muuqday 3 World Cup waa 2006 2010 iyo 2014 waxa uu xulkiisa kula guuleystay Copa America 2015 xilliga oo ay Chile koobka ka faramaroojiyeen xulka qaranka Argentina balse inta ma aysan ku reemin mar kale ayay Copa America 2016 isugu yimaadeen koox xulalka Argentina iyo waliba Chile mar kale ay Chile ku guuleysteen. Claudio waa mid ka mid ah xidigihii ugu fiicnaa ee Sombra wadanka Chile haddii uusan ahayn kan ugu fiican. Dhamaaninta ayaan ku soo afmeeraynaa qormadii aan kaga hadlaynay nolosha ciyaaryahan Claudio Bravo waa xidig caalami balse haatan aanan ka mid ahayn dooqa koowaad ee macalinka xulka qaranka Spain iyo kooxda City macalin Pep Guardiola ka oo leeliyay kooxda City balse aanan Claudio Bravo u ogolaanin in safka koowaad ee uu mar walba ka mid noqdo ee kooxda City balse waa mid markaa kaydka madow kaga jira kooxda kubadda cagta Manchester City. Waxaan ku dadaalayaa saaxiibtinimada iyo cadaaladda haddii aad aragto wax aan sax ahayn fadlan ila soo wadaag adigoo faalla ka bixinaya halka commentigana igu soo qoraya wax waliba qaladaad ah had iyo jeer waanu qiimeyn doonaa waan ku ixtiraami doonaa sidoo kale fikirkaagu waa ii muhiim fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe iyo saar like igu dhiirigeli sidoo kale u share garee asxaabtaada baraha bulshada idil Facebook Instagram Twitter tan iyo video caankani oo kale aad u xiiso badan intaan ku kulmi doono waa anigu Jamuni sidoo kale channelkeena wariye Jamuni oo idinkaga tagayno sida iyo nabadgelyo salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.